gaari oo wantana ku qalibmay isaguna oo saarayeen dad family halka waxa ku geeriyootay marxuumad darawalkiina waa dhaawacmay gaariga waday Allah u naxariistay laba qof ayaa ku geeriyooday laba shil oo kala duwan oo ka dhacay duleedka magaalada Berbera shilalkani ayaa mid ka mid waxa uu dhacay xalay midka kalena waxa uu dhacay saaka waxaana shilkani sidoo kale ku dhaawacmay hal qof markii ay shilalkan dhaceen waxa halkaasi gaadhay ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka Saaxil waxaana faahfaahin ka bixiyay shilalkani taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka Saaxil Maxamed Cabdi Xasan waxaana uu digniin u diray darawalada gaadiidka isagoo sidoo kalena taxsi u diray eheladii ay labadaasi marxuun ay ka geeriyoodeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun habeenkii xalay toole ahaa 12 saac iyo daqiiqado waxa ka dhacay shil keenay dhimasho iyo khasaare gaadiid waxa isku dhacay labada gaariga Shamboga iyo gaariga weyn container-ka sida waxa ku dhintay hal qof oo darawalintii mid kamid ah ilaahay subhanahu wa ta'ala ha rahmado waxa uu yaalaa cusbitaalka meedkiisii darawalkii kala gacantaanu ku haynaa sababtii shilka dhalisay baaritaankeedii gacantaanu ku haynaa wixii saayid insha Allah ta'ala dib baanu kala wadaagi doonaa bulshada waxa kale oo saaka 7 saac markay ahayd saacadu 7 subaxnimo ka dhacay magaalada barigeeda control bari looga baxo dhinaca Burco hal gaari oo wantana ku qalibmay isaguna oo saarayeen dad family halka waxa ku geeriyootay marxuumad darawalkiina waa dhaawacmay gaariga waday Allah u naxariisto iyaga iyo eheladooda taxsi ayaan dirayaa baaritaankeedii insha Allah sababaha shilka keenay waanu baaraynaa wixii saayidana insha Allah ta'ala waa loo wadaagina saxaafada waxa kale oo soo jeedin lahaa darawaliinta wadada gaadiidka marka koobaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ka cabsadaan marka labaadna inay ilaaliyaan shuruucda wada marista waqtigan ku jiro marka gaadiidku aad buu isaga yaacay inta badan oo xilligan doorashooyinka lagu jiro waxaan gaadiidka u jeedinaynaa inay dadaalaan oo taxadiraan ummadooda ilaaliyaan naftooda ilaaliyaan sharciyada ilaaliyaan idii furin weyda inaguna inuu tallaabo ka qaadi doono ciidanka nabadgelyada wadooyinka gobolka Saaxil wuxuu diyaar u yahay oo mar walba diyaar u yahay inuu tallaabo ka qaado cid kasta oo ku cadgudubta shuruucda Cabdirasaaq Qaasin telefishinka Saab Berbera